السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلي مقالدين تعانا هاي واني قوة تتور عبساق أحمد نور تتور كمبالا وحجر سؤال لي سوي ديي تتوري وحان اسكو أركي إن ماركتي مركان بضحك عنا عن نقشب بلاوة إن شاء الله ما انتا ينكاد لدونا انقشدة وحيابها لقولة تعالي كرو waxyaabaha sababo iyo qatarta ay ka imaan karto iyo talooyin muhiim ah ayaan ka hadli doonaa hadduu yeebano ogolaado gishada ama maaragtay heykabka sida caadiga ah maaragtay xubnaha xabadka iyo caloosha ee jirka waxa kala qaybiyo muruq lagu magacaabo diaphragm kaasoo naga saacidayo maaragtay kala xalinta xubinta dheefshiidka iyo neef mareenka sidoo kale qayb weyn ka qaata neefsashada marmarka qaar waxa dhacdo si ismaamul la'aan ah inuu aruuro murqaas isla markaasna calaamada hiqda qofka oo bilaabo markaasna waxa dhacayso qofka inuu maaragtay si toos ah u hadli waayo ama wax uu cuni waayo waxay soconaysaa wax ka yar 48 saacadood waxyaabaha maaragtay soo dedejin karana waxa kamid ah ama sababi karo waxa kamid ah cabida alkoolada faraha badan maaragtay cuntada raashinka maaragtay badan cunida raashinka badan maaragtay waxa kale oo sababi karo laqida hawada badan xilliga uu qofka wax calaalinayo isbedel ku yimaado heerkulka haday maaragtay hingada ama hiqda si maaragtay si socoto 48 saacadood waxa maaragtay la xiriiriya xanuunada jiro sida laabjeexa strooga maaragtay thyroidka ayaa la xiriiriya waxa soo dedejin karo hingada waxa soo dedejin karo isbedelka maskaxda ku yimaado sida depressionka walwalka walbahaarka stresska inuu qof ku yimaado sidoo kale dadka qaar maaragtay qaleenka kadib waxa maaragtay la soo dirsa hinga far badan taasoo maaragtay loo aananinayo daawooyinka maaragtay suuxdinta ama anesthesiyada qatraha ay keeni karto maaragtay hiqda ama maaragtay kabka qofka inuu maaragtay cunista oo qofka maaragtay ku dhibtaato way keeni kartaa qofka maaragtay cuntada oo ku dhibtaato iyo qofka maaragtay si saxan u hadli waayo siyaabaha kale oo lagu tacaali karo qofka maaragtay qabo ingishada waqtiga dheer waxa loo sameeyaa maaragtay baaritaan guud si meesha laga saaro xanuunada kale oo jiro kadib bukaanka waxa laga xaliyaa baarista waxa laga helo bukaanka hadii uusan qabin wax xanuuna wuxuu qaadan karaa daawada metoclopramide iyo maaragtay clopramazine sidoo kale bukaanka waxa teeda kale oo loo sameey karaa inuu qofka bukaanka lagu la madadaaliyo oo lagu sameeyo in la dhaho kale qofka in maaragtay xogaa maaragtay neefta isku celi ama oo soo qaato bacdaas la dhaho ku neefso ayadana maaragtay ugu baabi'i kartaa